aqalka sare ee baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan qof kasta oo meeshaan fadhiya mas'uuliyaddu ku fadhiya anoo ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta waxaan ka xumahay inay maalin kasta ay noqoto muxuu ahaa bal hal qof waa haween hal si inay tahay in la rabo waxa aan rabna aan hiigsanayno in ummadda qof kasta meesha uga aadantaa uu ka hadlo labadaas in la kala saaraan rabaa horta koow. maanta waa maalin weyn waa munaasabadii faritaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare waxaan leeyahay hambalyo waan uga mahadcelinaynaa inay madaxda nagu soo casuuntay inaan ka qayb galno haddaan guddiga doorashada nahay maxaa yeelay wax badan iskaga kaana xiran haddii ilaahay idmo waxaa isaga keen xiran oo doorka aqalka sarena waxa waaye shuruuco badan iyo nidaamyo badan oo la rabo in la sameeyo iyo go'aanyo badan oo siyaasadeed oo la rabo in la gaaro meelaha ay nooga imaanayso waa labada aqal marka taasaa keenaysa qasab oo annaga jiritaankeena ku xiran oo aanan bashaqayn karin haddii aanan helin shuruucahaas iyo awoodahaasayto. aqalka sare waa mas'uulka dowlad goboleedyada runtii siduu muxuu ahaa walaalkay iga horreeyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland uu sheegay xubnaha sida tooska ee baarlamaanadu u soo doorteen aad tihiin oo dowlad goboleedyadii mathalaya waxaan rajaynayaa inay mas'uuliyadaasayto horena waa u gudateen hadda kadibna inay idinka muuqato dowlad goboleedyada idin soo wakiisha oo idin soo doortay oo gacanta idin taagayna saa u mathali lahaydeen inay dhab noqoto oo aad wada shaqayntaas aad wada yeelatiin. daraad waxaa la furay aqalka xogolaha shacbiga maantana waxaa la furayaa aqalka sare waqtiga noo haray annaka markaa iska hadalna guddi doorasho ahaan wixii naloo idmada waqtiga noo haray aad u yar yahay waqtiga aadaan ugu xisaabtamaynaa maanta halkaan aan fadhino wax badan aan qaban lahayn subaxii saan u tagno waxaan ka tagnaa xafiiska 5 ilaa 6 waxaanu u fadhinaa inaan dhammaystirno howlo badan waa ogahay maskaxdiina waxaa ku wada jirto waxa ay ka hadlayso doorasho ay ka hadlay xagee doorasho ka dhacay waa mid ay igula hadashiin maalin kasta ay nagula hadlaan siyaasiyiintu shacabkana waxay ku weydiiyaan su'aasha ah goormee wadankan doorasho ka dhici doontaa goormee qofkaan rabnay aan dooran doonaa siyaasiyiintuna waxay dhahaan waa riyoonaysiin xagee doorasho ka dhacay doorasho ma dhowa kulligiin hal aan iskaga hornimid waa is ognahay marka wax yaraan rabaa inay idin macneeyo doorashada horta horeeto waa wax universal adduunka ka dhaxaysa waxa waaye general ah markii wadanku uu doorasho galayna way soo galaysaa markaasay asaga xaaladihiisa specific ah way soo galay doorashadaas iyo sharcigaas inay ku jirto oo ay ka salaysan tahay annagu guddi ahaan siyaasiyiin ma nihin inay wadankan doorasho ka dhacdo iyo in kale waxay ku imaanaysaa rabitaanka siyaasiyiinta iyo dastuurka wixii loogu dhigay iyo wixii lagu heshiiyay oo la gaaro waa shaqo adinka idin taala hadaartiin dhaha doorasho ma dhacayso hadaartiin dhaha way dhacaysaa laakiin annaga mas'uuliyadana saaran maxay tahay doorashadu waa process oo technical ah waliba kaasaan rabnaa hal inaan u sameeyno marba mid inaan sameeyno mid kastana waqtigiisa aan ku sameeyno sharciga doorashooyinka waa la daraaf gareeyay baarlamaankuna ku dambeyn doonaa haddii ilaahay idmo laakiin waxaan ka shaqaynaynaa xeerarkii ka soo hoos baxay oo universalka ahaa ma fadhiisanayno maxaa yeelay waa ognahay siyaasiyiinta Soomaali markay danahooda ka heshiiyaan inay heshiin doonaan ay dhihi doonaan waxaas ha la qabto maalintii la yiraahdo doorasho ha la qabto ha u maleynina in oo kow laga soo bilaabayo wixii waa idin diyaariyihiin horeyaa laga baxaa horaa laga qabanaa doorasho waxaana idin sheegaa maantadan la joogo haddaan isku raacno in doorasho la qabto waa la qaban karaa maskaxdiina ka bixiya doorasho lama qaban karo doorasho waa la qaban karaa maskaxdiina taas kaliya waxaan ka rabnaa aqalka sare inuu nala shaqeeyo hadda waxay noo maraysaa inaan tagno dowlad goboleedyadii waxaan rabaa inaan shir gaar ah la yeesho
senator Farole oo si fiican u yaqaana goobaha wax laga dooran karo sida ay yihiin iyo meesha ogyihiin marka waxaan ogahay researchka aan sameeyay maalintii la yiri Puntland doorasho laga sameeynayaa sida loo diyaariyaan ogahay iyo shaqadii laga galay iyo hawshii la qabtaan ogahay waxaan rabnaa inaan goobihii tagno oo soo aragno satellite-ka wax noo sheega satellite kuma socon karno inaan hal u tagno haddaadnaan adinku fasax isiinin oo dowlad goboleedyadii aadnaan fasax iiga soo qaadin sideen ku tagaynaa oo verificationkaas aan ku sameynaynaa waxaa micnaha meelaha aad naga curyaamin doontiin inaysan doorasho dhicin aad rabtiin meelahaas waa meelaha nalaga curyaamin doono waa isu joognaa way imaanaysaa waana sheegaynaa anaga haddaan guddigana waxaan leenahay saasaan rabnay inaan sameyno waana noo suuroobi weysay sababtaasayto marka shaqo aad u weyn idin sugaysa xiriir toos aan leenahay waxaan idinka codsanaynaa nala shaqeeyo process kaliyan diyaarinaynaa ee nala diyaariyo siyaasad ma aha teena documenti meel yaalo oo process aan rabnaa inaan diyaarino nala diyaariyo haddii artiin doorashada diida siyaasiyan waqtiga aad u yar yahay nahaaya waxa noo yaalana waa badan yahay haddaan shalay aqalka sare iyo golaha shacbiga hal maalin ay wada shiri lahaayeen oo loo wada furi lahaa halahaan maanta saacad naga dhuntay nagama dhunteen waliba aqalka sare waxaan ku tirinaynaa mas'uuliyiintii qaranka ugu waaweyneed inay ku jirto oo waaye aragga aheedaan ku tirinaynaa walaalayaal waxyaabaha gaarka inaan intaas ka dhigno waqti ma hayno dhaqaale ma hayno dadku waa naga le'anayaan aan Soomaalinimo horta u shaqeyno bal waxa kale ha noo dambeeyaane hal mar aan Soomaalinimo magac Soomaaliyeed iyo jiritaan Soomaaliyeed aan ku shaqeyno intaas waxaan la hadlayaa aqalka sare mas'uuliyiinta sarsare ah waxyaabaha gaarka intaan meel iska dhigno Soomaali meel kasta halkaan waxaa laga hadlayaa maanta oo dhan naag umula isbitaal ma aadin waa la dhintay waa la dhiig baxay waa la taas dhan mas'uuliyad annaga dhanna wada saaran waay dawladda kaligeed ma saarna hadday qaldan tahayna dawladda waa in lagu qabsadaa oo lagu saxaa meesha ka qaldan tahay laakiin mas'uuliyadna saaran waay halkaan wixii abwaan soo istaagay qofkii soo istaagay oo baarlamaan ka hadlaayay lagama hadlin dhalinyarada la'anaysa oo qaraxa ku dhimanaysa maalin kasta oo iskaga keen dhigaysa qaraxa dhiirigelin xataa lama siinin ma la dhiirigelin ciidamadeena way la'adeen dhalinyaradeena way la'adeen siday ku la'adeen iyo waxay ku la'adeen isa uga bixi lahayn dawladda iyo adinka iyo shacbiga laga wada rabaa laakiin ciidankeenu waa dadaalay qorraxday taagan yihiin waliba waa ogeydeen ayadoo mushaar 4 bilood ma qaadan la leeyihiin ay taagnaayeen ay shaqeynayeen hal mar aan dhiirigelin dadkeena aan dhalinyaradeena dhiirigelin aan askarteena dhiirigelin aan wadankeena saa nabad uga dhigan lahayn ka wada oo ayidayna oo saxayna shabaab guulaha uu gaaray ani ma qabo shabaab inuu guulo naga gaaray halkaan fadhinaa daraad gudaafaday ahayd meeshan maantana halkaan fadhinaa quruxda badan guulaan gaarnay waa soconaynaa yaana niyad jabin doorashooyinka marka waa dhacayaan hadii Ilaahay yiraahdo laakiin 5 sano kadib ay dhici karaan hadaa adinka dhahdin 2 sano kadib ay dhici karaan hadaa adinka dhahdin 2020 ee ku ekeed ay dhici karaan hadaa adinka dhahdin oo aad nala shaqaysiin waxaa la yiri doorasho xisbiya u tartama xisbiyadii haddaysan gobolada xafiis ka soo furan karin doorashada loo tartama xagee taala waxaan rabnaa xisbiyada waa process technique ha loo ogolaado in la furo haddaan loo ogolaan micnaha doorasho ma rabtiin waxaana afeef uga nahay baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare iyo golaha shacbiga adinkaan afeef idinkaga nahay dastuuraad ansixiseen markaad aqalka sare baarlamaanka isku wada ahaydeen oo aad dhahdeen wadankan waa inay doorasho ka dhacdaa 4 sano soo socoto labadii kun aad dhahdeen waa fadhiyaan dad badan fadhiya oo labadii kun dhahay doorasho hal qof aan gaari doonaa 2000 iyo muxuu ahay 6dii haddana dhaheen haddana 2012 ay dhaheen haddana 2016 aad dhahdeen doorasho dhacays ha laga dhabeeyo waxaan mar kale u hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan kale u hambalyeynayaa ciidamada dhalinyarada ee dhimanaya waxaan u